marka ognahay Elon Musk yani oo maxay haystay barnaamijyo fara badan oo uu challenge kula jiray maxay yani rag waaweyn maxay Mareykan jooga ama China jooga whatever dadka maxay lacagta haysta maanta uu maxay soo saarayo wax maskaxda bini aadanka maxay si easily loogu manage gareyn karo waxaad ogaanaysaa maxay yani caalamka soo maxay soo hirdiyay halka arrintu marayso السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دوادة سومالي هذا لايف ستايل 1 أو على قناة حريدان وحي عافماتك قصية iyo technology la xiriira caafimaadka qudhiisa dhawaan waxa soo baxay barnaamij uu hirgeliyay ninka reer Mareykan ama Canada ba ah ee ku dhashay South Africa loo yaqaano magaciisa Elon Musk barnaamijkaas wuxuu ugu magac daray wax loo yaqaano Neuralink waxa weeye Neuralink sidii wax yaro shilin ah oo maskaxda bini aadanka ku rakibayo kaas oo ka caawin kara qofka in oo wixii magaranaysa damage ah maskaxdiisa ku saabsan kor u qaadi karto sida mesela ilowshaha sida hadii maxay mesela electric problem ay ka jirto maskaxdiisa sida suuxdimaha oo kale in ay magaranaysa higher function gaarsiin karto oo ay damage ka maxay meesha ka saari karto Elon Musk waxa uu haystaa barnaamijyo fara badan oo la tacalluqa technology-ga sida Tesla iyo SpaceX waxa uu challenge fara badan kula jira ninkaasi Mark Zuckerberg oo ah mulkiilaha Facebook oo qodayso raba inuu technology-ga maanta uu gacanta ku haya uu hor u sii wado ilaa uu ka gaarsiinayo caalamka inuu noqdo one city oo yar يعني basically والله حتى waxay tahay in migrants caalamka uu noqday yani qariye yar ama mesela magaalo yar xaafad yar soo og meel kasta wixii ka dhacay aad ogtahay hadda marka Elon Musk wuxuu soo kordhiyay in maskaxdi bini aadanka gudaha loo galo oo migrants wixii dhaatay ku jirtay lagu shubi karo migrants serverro si loo eego dibadna loo garan karo qofkaas wuxuu ka fikirayo wixii uu migrants yani balan gareynayo iyo wixii problem maskaxdiisa ku jirta sidii loo damage loo maxay fix gareyn lahaa adoo Elon Musk isku soo duuduubo shariixada yar hadda soo saaray waxa uu ku tijaabiyay doofaarro ku tijaabiyay marka doofaaradaas waxa la arkay iyagoo migrants la akhri karo dhaatada ku saabsan maskaxdooda marka ognahay Elon Musk yani oo maxay haystay barnaamijyo fara badan oo uu challenge kula jiray maxay yani rag waaweyn maxay Mareykan jooga ama China jooga whatever dadka maxay lacagta haysta maanta uu maxay soo saarayo wax maskaxda bini aadanka maxay si easily loogu manage gareyn karo waxaad ogaanaysaa maxay yani caalamka soo maxay soo hirdiyay halka arrintu marayso security ahaan aday noqoto lacag ahaan aday noqoto maxay yani cilmi ahaan oo kale ilaa maxay culimada xataa way soo gelaysaa meesha magaranaysa marka lacag fara badan baa lagu fangareeyay barnaamijkan Neuralink oo gaari karta maxay yani 6 iyo mesela 26 milyan oo wax noocaas gaarta hadda waxa marka yani la isweydiinaya barnaamijkani ma noqon karaa barnaamij 100% oo maxay najaxaya mise wuxuu keeni karaa dhibaatooyin culimada qaar baa waxay yiraahdeen maskaxda bini aadanka oo ku shaqeysan maxay yani synapse ama electronicska sida maxay magaranaysa waveska isu diraya iyo maxay neuronska maxay connectionka synapse uu ka dhaxeeyo hadii hadaba lagu soo kordhiyo wax kale oo isaguna maxay electric wata ama waves kala keenaya waxay keeni kartaa inuu maxay dhibaato fara badan oo yani maxay tii laga duwanay ka badan ba uu keeni karaba sida mesela qofkii oo yani maxay yani sida mesela suuxdimo fara badan bilaaba gariir fara badan oo loo baahan bilaaba maskaxda qayb dhimatada hadii maxay uu mobile gacanta ku haysto mobilkaasi waveskiisu iyo waveska maxay yani shilin kare lagu rakibay ay maxay touch sameeyaan oo ay marka qofkii dhibaato badan si gaarsiin karaan adugo arrinku ma sahlana hadda يعني maxay dadkii wali lagu tijaabin laakiin doofaarka lagu tijaabiyay waxay ogaadeen in ay akhri karaan waxa uu ku fikirayo iyo waxa maxay maskaxdiisa ka guuxayay waxyaabaha rabo oo dhan bay akhri karaan adigu de yani ilaa mesela 80% waa akhriyaan magaranaysa waxaanay u bedeleen daato caadi oo la akhri karo hadda qofkii hadaba lagu tijaabin lahaa ugu horeeyay la oran lahaa maxay qofka waxa ku jirta maxay shariixayr ba madaxa kaga jirto memory-diisa oo dhan ay ku save gareysan tahay keebu noqonaya weli ilaa ethically hadda lama awoodin in magaranaysa la sii daayo oo la yiraahdo maxay human baa lagu tijaabiyay bahalkii wataana natiijadii sidii mesela maxay robotka ay soo saareen de Sofia oo kale ay dhahdeen maxay waxaas qaban kartaa de wixii ay qabanayso dhan ay soo list gareeyeen qofkii maxay markaa lagu tijaabiyay hada bahalkan ayaa halkaas soo taagano waa ka hebelo maxay waxaas ka fikiraya in halkan maxay maanta ka access gareynaa maxay kaga jirna maxay website-da kaga jirna weli ilaa hadda lama awoodin arrinkaasina waqti badan buu qaadanay because ma haya arrin sahlan maaha qof kasta wuxuu qoraya I'm not the first one oo ku tijaabisanay iga raali hada
halka macluumaadka kala socotaan waxa weeye Somali Health Lifestyle One channelka like saar fiidiyoodiisa sidoo kale subscribe garee asxaabtada la wadaag si aan markasta u kala faa'iideysan karno channelkuna u weynaado Elon Musk iyo mashruuciisu aynu u joogno. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.